farxadda media oo ayaduna bahwadaag la ah channelka hadda aad la joogto ee durdur media soo diidanahay waxa inta badan ninkii liwaan shora wato oo mar waliba oo maartay oo haladaas aan ka maqlaa garab ma ku siinaa asiguna jawaabaha u bixiyo inta badan waxay u badnaadaan nin raga in xaaskiisa garab lagu siiyo ya maya boqolkiiba wejiga wixii la sheega wax lee ka jira adiga hadda waad iska difirtay dhammaan inaad dooliga aad meel ugu egtahay maya dooligaas assalaamu calaykum galab wanaagsan duhur wanaagsan waqtiga hadda adinka i daawanaya ay idiin tahay dhammaantiin soomaali weyn oo wanaagsan halkani waa farxadda media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka farxadda media subscribe saar ha ka iloobin in aad furato gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koobaad mahadsanid waa maxay ciwaanka aan idiin wada saaxiibtayda aan jecelahay oo halkaan aan ku saaxiibnay farxadda media maanta waxaa stuudiyaha farxadda media qadka whatsappka marti ugu ah mukhtaar gudidow oo ah xubin ka tirsan shabakadda durdur media sidoo kale mukhtaar gudidow hadalhayntiisu ay qabsatay baraha bulshada dadka qaar ayaa waxay leeyihiin wuxuu u egyahay oonba laga aqaanin fanaanka maalmahan asagana baraha bulshada qabsaday garanda b ee reegani waayahay hadda si toosa waxaa qadka ugu jira mukhtaar gudidow haye halow mukhtaar assalaamu calaykum وعليكم السلام مختار جدودو aniga oo suudi ah iyo asxaabta ku xiran farxadda media bal noo sheeg marka hore magacaada saxan suudiyo wasalaama marka horeysa asxaabta farxad media oo kusoo nabad ay joogaan dunida wasalaam magacii waxaa la yidhahdaa mukhtaari oo magaca gaaban oo lagu yeero mukhtaar guduudow waayahay magacaadu waa mukhtaar markii lasoo gaabiyana mukhtaar guduudow mukhtaar guduudow aad iyo aad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa waqtigaada qaaliga oo aadna siisay aadna usoo hortay farxadda media oo ayaduna bahwadaag la ah channelka hadda aad la joogto ee durdur media intaas ka sokow waxaan rabnaa inaan su-aalo dhowra ku weydiino oo dadka maskaxdooda ka guuxayo dadka ayaa waxay kugu xantaan ama si toosa kuu dhahaanba waxaad aad iyo aad ugu eg tahay fanaankan reer geni ee granda b arrintaasi maxaad ka leedahay adigu niyo waxaa jirta baryahan dambe dhegahayga markaan durdurmida aan kusoo biiray muddo adiga bilyan kahor waxaa maqlay in oo maarata dad badan oo igu wacaan ay dhahaan ii sheeg dooliyo iyo granda b ay u eg tahay in badan way maqlaan laakiin aniga shaksi ahaan horta soomaalidan waxay qofka markay wax ka arkaan waxay u saaraan macnaha magacyo asiga oo maaragtay asiga oo raali ka ahayn inta badan oo iskaga wacaan laakiin aniga shaksi ahaan ma aaminsani in oo maaragtay qofkaas isku egna hataa oo hal meel iskaga egnaa ma aaminsani ninkaas waa nin oo maaragtay oo waddan kale ah oo ii sheeg oo waxaa anagana soomaaliyan ahay oo dhaqan ahaan iyo maaragtay muuqaal ahaan hadda isku meegni waa ninkaas nin hadda haddaan fiirisamo qaabkiisa aa ujeedid maaa nin oo waxaa aniga isku nin dheer oo maaragtay oo maasha allah oo dhinaca tabarta isku mid manihi marka ayagaa wada oo mar badan saas way dhahaan waayahay mukhtaar guduudow granda b ama soomaalida u taqaana alfanaan dooli mar aan saas u fogeyn anigu qudhayda waxaan arkay iyadoo la leeyahay fanaan dooligii labaad oo kasoo baxay magaalada muqdisho aniga guduudow maba ku aqaaninba durdur media marka kugu arkan guduudow kuu bartay laakiin marka hore waxaan dhahayay alfanaan dooli ama granda b ayaa muqdisho kasoo baxay oo yacni ka waran adigo arrintaasi ma mid aad ku qanacsan tahaa mase mid aad leedahay ninkaani anigaa ka tayo badan oo aniga in laigu yeero dooli ama granda b waan kasoo horjeedaa maad leedahay shacabka na daawanayo hadda maya halka aniga qof waliba asiga ninkaas walaalkeena oo waxa aan aniga waxaan kaba sheegay laakiin waxaan is leeyahay ani shaksi ahaan ma aan isku egni isku waxaan manihi maaragtay waan arrintaas waa diidanahay waxa inta badanna ninkii liwaan shora wato oo mar waliba oo maaragtay oo haladaas aan ka maqlaa iyo asxaab kale ayagaas lamid ah oo igala kastamo laakiin shaksi ahaan iskuma egni dad oo hataa isku xaamanihi marka waxaan leeyahay asxaabta magaceyga oo caadiga ah mukhtaar
ibrahim mucalim waa lagu wici karaa oo mid kale guduuda waa la dhihi karaa laakiin in leedaho ii sheeg Garandabi ama Dooli taasi macnaha ma jecli mana ogoli. waayahay hadda eedda waxaa dusha ka saartay asxaabta kula shaqeysa sida Liban Shorla oo kale bahda Durdur Media ayaa burbuuninaysa ma leedahay in lagugu yeero Dooli si fiican asiga inta badan wado oo hataa ii sheeg dhihi jiray CK waxa si dhahay oo maaragtay hadalahaas uu dhahay laakiin ma ogoli aniga man aaminsaniba saa hore kugu sheegaba ma aaminsani dadka laakiin ayaga iska wado oo dhaho ninkaas oo maaragtay foorjamay ka tahay iyo waxay ka tahay ma aqaan laakiin shakhsi ahaan ma aan aaminsani waxaanu leeyahay asxaabta ku xiran ayagana waxaa leeyahay Farxadda Media magaciga guduudu hay ugu wacaan Mukhtaar guduudow Garandabi iyo saas waxaas afaarahaasna mana ogoli saas ha la socdaan insha allah. waayahay Mukhtaar guduudow haddii aan kula kaftamo Garandabi asigu waa fanaan caan ah talentigiisana hadda adduunka wax ugu qabsaday inkastoo mar wareysi lala yeesho oo dhahay aniga dhib ayaan qabaayo dhanka xaaskiisa maadaama uu qabo sidaad aragtay xaas miisaanka ama mugga 99% ka balac weyn ama ka miisaan badan sida hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka human watch baxay dhahaanayaho ma dhiban tahay garab ma ku siinaa asiguna jawaabaha u bixiyo inta badan waxay u badnaadaan nin raga in xaaskiisa garab lagu siiyo marka macquul ma maadaama hadda adiga aad Muqdisho joogtid oo Garandabina lagugu metelay ama ninkaas dhirarkiisa lagu qiyaasay adiga oo 1 mitir ka gaaban yahay adiga su'aalo noocaas oo kala ah niyo saas tahay su'aalo ma lagu weydiiyaa live ah ma hadda dad oo markii laga soo reebay asxaabtayda oo shaqo wadaaga aan ahay ama kuwa isna qaado xaafadaha oo wadahan markii laga soo tago qof hadda oo si official ah oo weydiiyo caawinaad ma hayo. waa tahay adigu hadda dhab ahaan ma aaminsantaha haba yaraatee 30% ba ha noqotee Garandabi ama fanaanka Soomaalidu taqaana fanaan Dooli waa la isku sii qabanaa adigu ma aaminsantaha waa laga yaabaa iska dhigta Soomaalida dadka waxaa jira liigu qofka 40 qof oo eg oo maaragtay oo meel waa dhici kartaa laakiin qof oo maaragtay oo akaasho oo sax ah isku mid laakiin waa laga yaabaa in meelaha qaarkood la dhaho taasoo iska dhici kartaa laakiin kaasho oo sax oo ninkaan markii oo asiil la arko ama la arko oo isku soo qaaday oo alla ilaah dadkaan waa dad oo isku ego ama mintaana mani taasi waa ka soo horjeeda laakiin waa laga dhici kartaa in meelaha qaarkood oo dhacdo bafaan waayahay waxaa taabatay meelaha qaarkood bini'aadamkan waxaa la dhahaa baasaboorkiisu waa wejiga meelaha qaarkood ka waran weji ahaan mis 100% meeqa isku ogtihiin ya maya 100% wejiga waxaas leeyahay 0 inay tahay haye taban inay sanka tahay macquul shan oo hadda dadka Soomaaliyeed Garandabiga labaad ama Dooliga labaad kugu yeerayo ma sanka bis ay kugu dhaheen waxaa laga yaabaa in ay saasay u fahansan yihiin waa gartay laga yaabaa laakiin aniga weli ma aan waxaas leeyahay markay dhaheen ereygaas waxaa laga yaabaa inay xoogoo sanka ay wax ka fiirsheen waayahay dhirir ahaan waad ka dheertaa meed aaminsantaha adigu dhirir ahaan iyo tabar ahaan isku mid madihi oo qof oo maaragtay oo dheer ahay ayaga macnaha dhinacaas uma filaaris waaya Mukhtaar guduuda waxaa la yidhi waliin la sheega waa lee ka jira wixii la sheega wax lee ka jira adiga hadda waad iska dafirtay dhammaan inaad Dooliga aad meel ugu egtahay maya Dooligaas horta barnaamijkaas anoo 5 maalin joogo oo Durdur Media qofka ugu bilaabay waa ninka yiraahdo ii sheegay Liban Shorla halkood inuu asiga gaarsiiyey ma fahanti waa gartay aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtaar guduudow oo waqtigiisa qaaliga u soo horay Farxadda Media saaxiib dhowna la ah Durdur Media aad iyo aad u mahadsan tahay kana tirsan bahda warbaahinta ama shabakada Durdur Media waa in salaama dhamaantiina Farxadda Media iyo asxaabta ku xidhan ay leeyahay guuleysta dhamaantiin insha Allah anaga waxaan leenahay istaag ayaan ku wareysanayaa u jeedin waa legend
adinka ayaa horumar gaarsiin kara hadafka oo leeyahay adinka gaarsiin kartiin ha loo istaaga mukhtaar gaduudow asxaabta ku xiran farxadda media aad u maasanta calaykum asalaam waayahay kaasina wuxuu ahaay mukhtaar gaduudow oo dadka soomaaliyeed khaasatan reer muqdisho ay ugu yeereen garanda b ama fanaandooliga labaad ee soomaaliya kasoo baxay waayahay soomaali weyn aad iyo aad u mahadsantihiin iyo asxaabta ku xiran farxadda media oo dhan ruuxa bini-aadanka haddii aan nahay muslim waxa oo dhibsado waa laga daayaa fadlan waxaan ka codsanaynaa mukhtaar gaduudow wuu caddaystay inuu ninkaas u ekeen oona jecleen in loogu yeero fanaan dooli ama garanda b-ga labaad ee soomaaliya kasoo baxay ha laga daayo bliis halkaad daawanaysaan waa farxadda media halkaas ayaan barnaamijkii kusoo gabagabeyneynaa waa anigoo suudiya isku soo naqa dambe oo xiisalay adigoo caafimaad qaba anigoo caafimaad qabo sidaas iyo